السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إيجا حران جنالك ماما منى دمانتي waxaa idin leeyahay intiina ay subaxda u tahay subax wanaagsan intiina ay habeenka u tahay habeen wanaagsan ma sha Allah tabarakallah walaalahay aad iyo aad u mahadsantihiin aad iyo aad idinku mahadnaqaya ma sha Allah tabarakallah maanta maxaan wadaagaynaa marxab ya Ramadaan ma sha Allah tabarakallah isu diyaarinta Ramadaanka iyo sida waqtigeena aan u fududeysan lahayn ma sha Allah tabarakallah maanta waxaan idin la wadaagayaa hal shay oo hooyada si fiican jikada ooga caawiya ma sha Allah tabarakallah oo afurkaaga ku fududeeyo si aa hooyo aa u hesho waqti aa u hesho cibaadadaada nasashadaada quruxdaada ilmahaaga ma sha Allah tabarakallah intaba aa waqtigaaga ma taqaana u soo gaabin karto sababtoo ah kulligeen waa wada ognahay ma sha Allah tabarakallah in xilliga Ramadaanka waqtiga ugu faraha badan cunto karin ay naga gasho waa loo baahan yahay believe me ma sha Allah waa bisha kaliya ee aan cibaadaysano zaidka ma sha Allah waana soo dhawaynaynaa waa sugilaanaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa anigii adiga inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo cibaado inuu Ilaahay nagu gaarsiiyo marka dhamaanteen waxaan leenahay marxab يا رمضان ما شاء الله هذا من maanta maxay idin la wadaagaysaa oo Ramadaanta waxyaabaha maadaama aan ahay hooyo biisi ah ma sha Allah tabarakallah waxa idin la wadaagayaa shay anigii adiga afurka karintiisa noo fududeeyo ma sha Allah hada reeraseen buusay tahay ma sha Allah marka aan ka hadli doonaa biidnillaahi baari laakiin maanta shaygan aan idin la wadaagayo ma sha Allah wax walba ayuu mataqaanaa in uu ku sahlaya uu ku fududeynaya oo waqtiga kaaga dhigi lahaa mataqaanaa waqtiga ku dheereyn lahaa ayaa waqtiga ku soo gaabsanaysa sida jarjarida maxaa la yiraahdaa ma sha Allah tabarakallah ee qudaarta ama asalalka u jarjaran lahayd Soomaaliyeedna kama maarana waa ogahay maxaa la dhahaa sambuuska wixii insidekiisa ay gelin lahayd oo yaryaraysan lahayd oo u jarjaran lahayd meeshii aad ku bixin lahayd hal saac maxaa la dhahaa intaas aad ku bixin lahayd hadba family size-kaaga sida uu yahay I guarantee you ma sha Allah tabarakallah bahashan hadda aan idin la wadaagaya intiina heli karta intiina aan heli karin ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan idin ka baryayaa inuu Ilaahay mataqaana xoogina ciidan idin galiyo intiina heli kartana sidaas oo kaleeto ma sha Allah laakiin bahashan waxay aad kuugu fududeynaysaa jikada hawsheeda oo ah waxyaabaha ugu faraha badan ee waqtiga qaato horta muxuu yahay waxay tahay ma sha Allah tabarakallah sida hadda sambuuska oo kale marka la sameynayo jarjarida basasha qudaarta ma sha Allah tabarakallah salarada waxyaabahaas oo dhan marka la sameynayo walaalaha ilmaha yar yar haysto inta badan french fries oo maxaa la dhahaa jibiska u sameeya caruurta I recommend in ovenka hoos u galisaan ma sha Allah laakiin ayadana birtaan aad iyo aad mataqaanaa bahashan ay kuugu fududeynaysaa sababtoo ah 15 kiilo xataa hal mar aad dubi kartaa ayada hadaa haysato kaliya mataqaanaa size-ka aad rabtid ay kuu soo saaraysaa nooca aad rabtid ay u jaraysaa oo waliba mataqaanaa qurux badan on the top of that xaga sharaxaada cuntada waxay ku qurux badan tahay in la sharaxo ma sha Allah tabarakallah salarkaaga si fiican uu kuugu sharaxmayaa si isla eg uu kuugu go'ayaa ma sha Allah tabarakallah waqti badanna kaama qaadanayo ma sha Allah marka bahashaas idin la jeclaystay wax walba oo aan naftayda la jeclahay ayaan walaalahay idin la jeclahay meel alaali iyo meesha aad joogtaanba marka maadaama aan aniga bahashan aan naftayda aan la jeclahay ee kamid tahay waxyaabaha mataqaana noloshayda kamidka ah zaidka aan u isticmaalo aalado fara badan oo maxaa lahaa ma sha Allah ayadoo kala ah ama u dhow ama siyaabo kale loo isticmaalo oo food process ah way jiraan laakiin aniga tan aan ka helaa ya way jiraan waxyaabo fara badan oo aan soo maray laakiin tan aan ka helaa sababtoo ah tan hal shay waaye halkaas shay 10 shay oo kala duwan hal mar ku kala jaraysaa oo aadan maanta dhan tan dhaq tan sii qaat tan soo bedel tan mataqaana xagga u bedel ya aadan galaynin waaye ma sha Allah tabarakallah kaligeeda hal mar saa u rakibanaysa shay walba oo aad rabto marka hore inta soo dhaqato ayaa mataqaana dhag way ku dhameystiraysaa ma sha Allah adiga laftirkaaga mashiin kale noqonayo sababtoo dhinacaasna waxa ka soo tuuraysaa jibiski dhinacan waxa ka soo tuuraysaa yaanyadii dhinacan waxa ka soo tuuraysaa qajaarkii dhinacan waxa ka soo tuuraysaa whatever mataqaana fruit and veggie you want mataqaana ina maalinkaas isticmaasho
ما شاء الله تبارك الله رمضان تأدي أذى أسود ويننا أنجي أذجبه إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا رمضان تهذا عافمات يبرواقو إنه نجو جارسيو ما شاء الله مركب وقت جن أنت بدن ما شاء الله تبارك الله إن وقلا مع عبادة إنه قلا إن عن هنوقف متقنا هوشي سنة هيستا عند سمر بيسنا كو هين جكدي أنا كو هين وحي الله بحنا أنا متقنا جكدي كسر هيسن كرا عادي أد بأرنت متقنا مهم يقول هاي ساس أودي ذا متقنا إذن لا وذاجي برتان ما عندها مسبحة عندها I don't know ما شاء الله تبارك الله مقعد ماشي يدين ساري هاي waxyaabaha jikada looga shaqeysto oo hawsha fududeeyo hooyo waa u baahan tahay waxa hawsha ku fududeeyo waliba gabdhaha qurbaha North America ما شاء الله تبارك الله وقته aad mataqaana u yaryahay hooyo kasta walaalahayga Soomaaliya joogo stay tuned I know hooyo marka tahayba hooyo walba waa mashquulsan tahay believe me hooyo walba wax mashquuliyo hooyanimadaaba mashquul eba ma sha Allah tabaaraka Allah daad iswa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hooyada cagaheeda uu jannada u galiyay there is a reason meel alaali meesha ay joogtaba hooyo waxaan ku rajaynayaa hooyo Soomaaliyeed caafimaad iyo nabad iyo xoog iyo awood ah ku soonto Allah subhanahu wa ta'ala anigi adigaba hanagu irsaaqo dhamaantiin walaalahay waxaan idin leeyahay مرحب يا رمضان.